Yaxye waa nin da'diisu ay tahay 40 sano. Waxa uu leeyahay xaas, waxa uuna dhalay gabadh yar oo ka xanuunsanaysa wadnaha. Shalay ayuu baxay si uu u soo dhiibo lacagta taksi oo asaga ka ahaa wade. Waxa uu gurigiisa ku soo noqday asagoon awoodin inuu soo gato cirbad lagu daaweeyo sokorta, taas oo uu la ildarnaa muddo sanad ah. Subaxii markii uu soo toosay, waxa uu soo kaxaystay darawalka, waxa uuna rajeynayay inuu Alle ku arsaaqi doono lacag uu ku daaweeyo xanuunka gabadhiisa yar iyo xanuunka asaga haya. Daqiiqado kadib, waxa uu waddada ku arkay wiil dhalinyaro ah, kaas oo ka halaabay gaarigiisa, waxaana u taagtay gacanta si uu u sii qaado. Waa uu u joojiyay. Markii uu soo koray wiilkii dhalinyarta ahaa, ayaa Yaxye waxaa si kadis ah ugu soo kacay xanuunkii sokorta ahaa. Waxa uuna bilaabay inuu indhaha si fiican wax u arki waayo uuna wareero, mana uusan soo miyirsanin ilaa maalintii labaad mooye. Waxa uuna is arkay asagoo jiifa isbitaal khaas loo leeyahay. Markii uu weydiiyey waxa ku dhacay iyo cidda keentay meeshan, waxaa loo sheegay tilmaamaha wiilkii uu soo qaaday. Kadibna wiilkii dhalinyarta ahaa uu ka noqday isbitaalka asagoo degdegsan. Markii uu soo baxay Yaxye, ma uusan helin gaarigiisa, moobilkiisa iyo boorsadii yareed uu lacagta ku ridinayay. Yaxye waxa uu ogaaday in ninka dhalinyarta ahaa uusan warbixin asaga ku saabsan dhigin isbitaalka, laakiin waxa uu isbitaalka ku reebay warbixinta Yaxye. Waxa uuna u maleeyay in ninka dhalinyarta ah uu khiyaanay. Waxa uu isbitaalka ka soo baxay asagoo aad moodo inuu waaleeyahay. Waxa uuna imaaday station-ka askarta, waxa uuna dacweeyay ninkii dhalinyarta ahaa, waxaana meesha uga tegay tilmaamaha wiilkii dhalinyarta ahaa. Askartii markii ay ku noqdeen isbitaalka oo ay baareen kaamirada isbitaalka, waxa ay heleen sawirada wiilkii dhalinyarta ahaa. Yaxye waxa uu awoodi waayay in uu gurigiisa ku noqdo naxdin aawadeed. Waxa uuna ku wareeganayay waddooyinka asagoo ilmeynaya. Waxa uu muddo yar gudaheed ku waayay meesha kaliya ee arsaaqada ka soo galaysay. Waxa uu sii ahaaday mid ilmeynaya, waxa uuna baryay Alle asagoo ooynaya. Waxa uuna dhahayay, Allow waxa igu dhacay dhib fara badan, xanuunkayga iyo xanuunka gabadheeda. Muhiim ima aha xanuunkayga, ee waxaan u baqayaa xanuunka gabadheeda yar. Sidee ayaan u bixinayaa daaweynteeda? Dadkii oo idil ayaa ku soo aruuray, waxayna u keeneen cunto iyo biyo. Mid ka mid ah dadkii ku soo aruuray oo tagsiile ahaa ayaa waxa u soo bandhigay in uu u qaado gurigiisa. Waa uu raacay. Markii uu guriga keenayna, waxa uu gaariga ka degay asigoo aad moodo in uu waalayahay oo kale. Kadib waxa uu arkay gaarigiisa tagsiga ahaa oo yaala afaafka hore ee gurigiisa. Markii uu gurigiisa soo galayna, waxa uu arkay gabadhiisa yar oo jiifta, uu suran yahay mashiinka oksijiinka siiya dadka. Markii uu xaaskiisa weydiiyey waxa jira, waxay ku dhahday, shalay gabadheena yar waa ay xanuunsatay. Markii aan telefoonkaaga soo wacay, waxa iga qabtay saaxiibkaa, waxauna ii sheegay inaad adiga laftirkaaga aad suuxsan tahay oo uu kuu qaaday isbitaalka. Kadib waxa uu noo keenay tagsiga, waxauna noo qaaday isbitaalka. Haddii uu asaga inoo imaan lahaynna, gabadheena waa ay dhiman lahayd. Waxa uuna ballan qaaday wax walba oo ku baxaya gabadheena yar. Kadib waxa uu ii reebay furaha tagsiga, moobilkaaga iyo boorsadii aad lacagta ku ridin jirtay. Waxa kale oo igaga tagay lacag badan oo aan ku samayn karno qalliinka gabadheena yar. Yaxye waxa uu dareemay xishood aad u fara badan kadib markii uu ogaaday in ninkan uu Alle u soo diray. Markii uu gaarigiisa ka halaabay, haddii uusan ahaan lahaynna asiga u dhiman lahaa suuxdinta uu suuxay aawadeed, mana uusan heli lahayn qof dareema. Sidoo kale gabadhiisa waa ay ka dhiman lahayd. Asagoo oynaya ayuu Alle dembi dhaaf weydiistay. Kadib waxa uu ku noqday station-kii, waxauna ka noqday dacwadii. Kadib markii ay fiicnaatay gabadhiisa yar, xaaladdoodiina ay isbedeshay, waxa uu bilaabay in uu raadiyo ninkaas dhalinyarta ah si uu ugu celiyo abaalkiisa. Laakiin ma uusan helin.
xaaskiisa ayaa waxay xasuusisay xadiiska nabigeena naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. qofkii abaal idiin gala abaalkiisa u guda. haddii aadan helin wax aad ugu gudaan, alle u barya ilaa aad ka aragtaan inaad gudeen abaalkiisa. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب.